السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داود يلا ماسنتين. سيدا ودوغنهي وايدي دنبه Soomaalidu waxay qayb ka hayeen ama Soomaalidu waxay ku baraarugeen awoodda ay leedahay qoraalka, akhriska iyo faafinta aqoonta. Iyagoo halkaas Soomaalidu ka ambaqaadaya waxa waayidii dambeegiga Soomaaliyeed ku badnaa dhalinyaro isxil qaantay is-abaabulay oo sameeyay meelo wax lagu akhriyo waxay sameeyeen maktabado waxay sameeyeen madalo waxay sameeyeen goobo lagu akhriyo buugta lagu gorfeeyo wacyiga iyo afkaartana lagu kala gudbisto ama lagu kala bedesho taas marka waxay ahayd dhanka buugta iyo maktabadaha iyo kulamada dhalinyarada waxa meesha ka maqnaa ama waxa halka ka faa'iideysan jiray qofka kaliya ee meesha jooga ee imaada ee fursad u hela iyo qof muuqaal la duubay daawada maktabadaha iyo kulamada iyo arrimaha aan ka sheekeynay waxay ahayn arrimo fiican laakiin kuma filnayn ama dadka oo dhan uma suuragelinaynin in ay helaan waxay u baahnayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo is-abaabulay is-xilqaamay waqtigoodii iyo aragtidoodii iyo maalkoodiiba geliyay si ay dadka Soomaaliyeed ama ay qayb uga noqdaan kacdoonka aqoon ee socday waxay sameeyeen mareeg ay ku soo diyaariyeen dhamaan buugta ama waxay heli kareen qofka Soomaaliga ee ku nool dalkii ama ku nool dibadda ama ku meel kasta uu joogo wuxuu u baahan yahay buug akhristo in mareego buug laga akhristo oo laga gato adduunka way leeyihiin Afrikaanka way leeyihiin Carabta way leeyihiin reer galbeedka way leeyihiin laakiin Soomaalidu waxay ahaayeen mid meel ka maqnaayeen dhalinyaradaas is-abaabushay ayaa waxay sameysteen mareeg la dhaho Soma Book ESOMA Books hadaan higaadiyo oo waa mareeg loogu talagalay in ay buugta ay soo turjumaan oo meesha galiyaan si qofka Soomaaliga uu u helo buug u akhristo anigoo halka ka ambaqaadaya dhalinyaradaas dadaalay is-abaabulay is-xilqaamay aniga oo raba inaan taageero buugi aan qorayna guurana raba inuu dadka Soomaaliyeed gaaro inta hadda haysta mooyaan in kale oo fursad buugu gaaro asagoo warqad ahaan ayaa waxaan dhalinyaradaas aan ku caawiyay in buugayga aan geliyo website-kaas buugi oo 60% qiimo ahaan la dhimay ayaa wuxuu ku jiraa Soma Books oo aad ka heli kartaan waan ognahay dalkeena malaha maktabada waaweyn waan ognahay malaha daar wax daabacda malaha marka buuga warqada ah wuu ku adag yahay dadka Soomaalida aad iyo aad buu u adag yahay inay helaan mar walba laakiin waxa fudud in helo buugta elektarooniga ah ee qofkii ama website ka gadanayo ama ku dhaxarsan karo anagoo taa ka duulayna ayaan buugi waxaan gelinay website-kaas qof kasta oo Soomaaliya meel kasta uu joogo wuxuu ka gadan karaa buuga guure mareegtaas dhalinyarada Soomaaliyeed ay sameysteen dhalinyaradaas waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo waxay mudan yihiin in lagu daydo waxay mudan yihiin qof kasta oo Soomaaliya oo wax qora in uu mowqacoodaas ama website-koodaas uu buugtiisa geliyo qofkii heli kara dad kale oo aan Soomaali ahayna uu ku soo xiri karo waxa ugu yar inaga hadda Soomaalinahay aan ku caawin karnana waxa weeye in buugta meesha la geliyo aan gadano si ay dhalinyarada ka shaqeynaya ama u istaagay aqoonta iyo wixii ku tacalluqa ay u helaan niyad fiican loo dhiirigeliyo dhalinyaro badan waxa jira waxyaabo aan muhiim ah ku mashquula jira dagaal ku mashquula qabiil ku mashquula xagjirnimo ku mashquula laakiin maanta waxa u baahnaa in qof kasta oo dhalinyaro ah oo aragti fiican la imaado oo dalka wax taraysa oo dadka wax taraysa aan caawino aan ugu talagalno inaan u diyaarino niyo wanaagsan oo ku sii wadi karo barnaamijka waday marka guure oo 60% la dhimay qiimihiisii hore waxaad ka heli kartaan mareegtaas Soma Books iyo buug kale oo badan oo Soomaaliya iyo kuwa aan Soomaali ahayn aad iyo aad u mahadsantiin